nabi ibraahim labadan gabdhood mid oo yaqaan kuma jireen albaabka la u soo garaacay laakiin dhaqankooda ayaa keena midna inuu yiraahdo la bixiyo midna hal oo yiraahdo hal la adkeeyo hal la haayo waalid fayow oo cunugiisa maslaxadiisa aan jeclayn ma jiro qabtali ma bala soo heli karaba qofka kaliya ee nafteeda in la gooyo ayadoo naftaan kala la dhaafa ogol waa hooyada gabar social media ku jirta amba ayadoo qaawan is soo duubi jirtay amba wiil social media ku jira ee asagoo gabdha ku dhagdhagan la arki jira reer gabar ma saysan karaan halka horta wuxuu ku jira nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiskiisi oo ahay fa'di kulli haqqin haqqa qof walba in xaqiisa la siiyo waana la dardaarma naftaadu xaqay ku leedahay in la nafsika alayka xaq wala ahlika alayka xaq hayo wala tiri waxa fa'di kulli haqqin haqqa qof kasto xaqeeda inay qaadato martabada iyo mudnaanta ay leedahay qof walba horta inay hesho oo hooyadu ugu horeyso oo xoolaha wiilkeeda iyo maamulkiisa ay xaqeeda ka haysato iyo mudnaanteeda gabadha xaaska xaqeeda iyo mudnaanteeda inay haysato laakiin ay qofna qof ku xad gudbin hooyaduna inay gabadhan ku soo xad gudbin gabadhuna inaysan hooyada ku xad gudbin inay hooyada ka sareyso ayna u maleyn waxyaabaha cajiibka ah hadda meelaha ka maqlo oo aad u naxo waxa kamid ah qofa wax su'aalay saa'ila meel ka su'aalay carabaha horta u badan annaga waxaan isleeyahay su'aaluhu nuguma badnaa qab iyo qushta iyo habaarka iskula joogna amba kala tagnaa laakiin carabaha oo kale marka fiirsatay barnaamijyada telefishinadooda ka baxo aada su'aalahaas ugu badan wuxuu leeyahay hooyaday iyo xaaskayga ayaa isheesta amba isfahmi la aniga yaa horta xaq igu leh badan subhanallah su'aal oo la yaab la soomaha war hooyada iyo xaaskaaga maxaa miisaan iskula saar horta kafka maxaa labada kafoo miisaanka iskula saar dad isla saarma maahane dad isla saarma maahan hooyada aday ku leedahay xoolahaaga ay leedahay noloshaada ay leedahay gabadhaana waa xaaskaagi waxaad iskula joogtiin sharci iyo heshiis xuquuq ay kugu leedahay oo ay ka rabtaa inaa ilaaliso marka laba qof oo miisaan isla saarmayn oo mithaalka data aan soo qaadano milkiile iyo kireesta kala ah adu milkiile iyo kireesta maxaa kaf iskugu saaray oo iskugu miisaamay isku jimeynta qalad weyn waa halka marka qof walba in xaqiisa la siiyo ayay ku jiraan haddii marka taas dhici weyso maxaa tala ah horta maxaa la yiraahdaa gabadha amba wiilka waalidka hooyada qofka uu la nool yahay amba qofku qabo hooyadeed aan rabin saala gabadhan waa la soo guursada hooyadan dhashay wiilkan ma arki karay leedahay ma rabo haddaadna rabin waa jawaabtu iska fuuda iskaga tag adiga yimid adaa baxay laakiin wiilkan kuma raacay wiilkan hooyadiisa iskale soo u haraa waxaan la yaabay barnaamij Hargeysa maayaan hore sanadkii hore ma laga soo daynay aad u naxdin badnaa oo ay gabdho leeyihiin hooyadu haday guriga soo aaday xataa in fasax laga qaato waay horta gabdhaha iyo wiilasha waalidiinta nacab tala fiican u haynaa oo annagana anfacaysa ka bulsho ahaan xataa anfacaysa waxaa jiro wiilal iyo gabdho waalid lahayn oo meel nool laaba bulshada dhibaato ay haysato waalidkood la aqoonin kuwaas noo guursadaano kuwaas meel u laanahayba iyo cid oo kafaalahooda qaado marka gabadhi rabto in aan waalidka wiilka aysan maqli karin midka aan aabaha iyo hooyadiis lahayn amba la aqoon hanoo guursato iska basiid waa wiilka rabo inuu gabar muslimta soo guursado reerkeeda ka jaro ma maqli kara yiraahdane gabadha aan reerkeeda la aqoon amba lahayn asaguna hanoo guursado waliba mujtamaca culays weyn ka qaadayaan waxbayba nagu soo kordhinayaan marka halkaas tale in la siiyo haddii kale qof meel kaligeed cirka ka soo dhacda ma jirtee qofka waa la leeyahay cidda leh la macaamil si wanaag ah oo maxaa la yiraahdaa ilaahay kugu og yahay ula macaamil oo xaqeedu ogolaa oo wanaaji haddaadna wanaaji karina uga tag hooyadan haddaadna rabin wiilkeeda ayada dhashay oo iska leh uga tag wiil oo haddaadna gabadhan hooyadeed rabin hooyadeed gabadhan ayada dhashay uga tag maxaa kugu dhajiyay magaaladu waa weyn tahay wadankuna waa weyn yahay dhulka ilaahayna waa waasic kuwaas aan lagu haysan aad marka oo cid kugu qabsata lahayn
waxaa kale oo talada ah hooyada Soomaaliyeed rabta in ay gabadha wiilkeedu qabo shaqaale u noqotoy gabadhaas shaqaale ku noqomaysa shaqaale raadso gabadhan waa xaas karaamaysan oo gurigan lagu soo guursaday oo laga rabo inay ilmo hooyadood noqoto tarbiyaysa shaqaalahaaga ma noqon karto saar rabtidna kama heli kartid sidaad waxyaabaha oo qaldan waxa kamid ah isku namad ma noolidiin isku waqti ma noolidiin isku namadna uma noolidiin qofkan waxyaabaha hooyooyinka ka qaldan ay kamid yihiin inay rabto 60ka ayadu say u nooleed in gabadhan la soo guursanaa inay u noolaato ma yasir ma soconayso ma socon karto taas gabadhan zamankeeda ay nooshahay xilligeeda ay nooshahay say xilligeeda loo nool yahayna rabtaa inay u noolaato marka u dul qaado ileen adigi ma aha adiga saa rabto u soo nooleed xilligaaga waa soo qaadatay gabadhan say rabta ha u noolaato oo wanaagsan wax xun kama hadlayno laakiin xuquuqdaada cidnaha uga tanaasulin xaqi ka maqan oo wiilkaaga ka jiro aba gabadha wiilkaaga qaba ka jira doono waxyaabaha oo maxaa la yiraahdaa oo hadda aadka oo runtii noogu soo badanayo oo dhibaatada ugu weyn ee qoysaska Soomaaliyeed ay ka haysato waxa kamid ah social media gabar social media ku jirta amba ayadoo qaawan is soo duubi jirtay amba wiil social media ku jira ee asagoo gabdha ku dhagdhagan la arki jira reer gabar ma siisan karaan ma soo rabi karaan gabar ragga ka dhaxayso magaalada Ilaahay dayacana oo rabaa inuu reerka ku dirqiyo waa kala go'ayaan le reerkiisa asagoo waa caasi marka asagana caasinimadana waxyaabaha Soomaalidu caasi waxa laga yaabaa inaan macna kale u fahanay caasinimadu waxaanay ku dhex jirtaa saale hooyada ayaa waalidka u fadhiin oo Ilaahay ku dhahay fala taqullahuma uffin wala tanharhuma okay hadaa qof uf dhahays u keentana oo ku hayso qofki uf dhahay hadaa adigu ku hayso ka warrab adoo tiriya la mid ah Soomaaliya ilaa adaa qofka uf dhahayo noloshooda ku haayo oo u keenay marka muhiimadu waxa waaye dhaqamada oo qaldan ee jira ayaa waxyaabaha kamid ah hooyadu jiritaanka qoyska aysan uga qayb qaadan karin waxa kamid ah dhaqamada oo hadda social media amba waxa ka dhaca dhaqanka hooyadu gabar ay aragto inay dhaqan xumo uga jeedo ma xamili karto marka waxay ka shaqeynaysaa gurigaas burburkiisa gurigaas jiritaankiisa kama shaqeynayso aabuu laftirkiisa waa la mid wiil foodeeraha timuhu raamo u yihiin islaan cunugteeda u rabta male maba ku aamini kartaba ila mas'uulba ma qaadi karmaano qofka Ilaahay xarigiisa horta soo hagaaji waaye ma qof insaan oo xarigeeda hagaajina ma hagaajinaayo hooyadaas marka gabadhan hadoo wax yar aragtaba waxay leedahay warkaas awalba adaa wada jaagada dheer ka soo tag balaayada ninku ma noqonayo haday ilmo leedahay xataa waxa laga yaabaa inay tira ilmaha ana kula korina ka soo tag jiritaan qoys ma ka qayb qaadan karto marka hooyadaas marka uma eedeysno inay jiritaanka qoyskaas ka qayb qaadan weyso way ku saxan tahay nabiyullaahi ibraahim markuu soo booqday nabiyullaahi ismaaciil oo arkay muxuu dhahay gabadhii deyrinaysay xaaskiisa albaabka catabadiisa ha bedelo fariin ugu faray laana qof aan u qalmin nabi amba wiilkiisa u qalmin oo meesha ku arkay markii labaad oo soo noqdana xaaskiisa wuxuu ku yiri catabada albaabka ha adkeeyo laana gabar fiican ku arkay nabi ibraahim labadan gabdhood mid oo yaqaan kuma jireen albaabka lagu soo garaacay laakiin dhaqankooda ayaa keena midna inuu yiraahdo la bixiyo midna hal oo yiraahdo hal la adkeeyo hal la haayo marka soo koobno marka jiritaanka qoyska hooyadu waxay ku leedahay kaalin weyn kullama kaalinteeda la dafiro amba la ihmaaliyane qoyskaasu inuu sii dhisnaado waa adagta mulkigeedii loogu soo galsoma boqortooyadeedii qofka boqortooyo uu leeyahay Soomaa boqortooyadiisi hadii loogu soo gal marka wuxuu dhowranaa waa yaraanaya marka hooyooyinka boqortooyadooda ha loo aqbalo inay boqortooyo yihiin waxa waaye mana jiro aniga ma aaminsani aan qof waalan kama hadlaay waalid fayow oo cunugiisa maslaxadiisa aan jeclayn ma jiro qabtal ma bala soo heli karaba qofka kaliya ee nafteeda in la gooyo ayadoo naftaan kala la dhaafa ogol waa hooyada waxay ogosha haduu maanta malakamood soo istaago yiraahdo gabadhaadii wiilkaaga maan qaada mas adan ku qaada anigii qaaday leedahay ayadoo faraxsan marka
qof nafteeda waxay ka jeceshahay jirin ba inta ka jeclaatay inay goyso ogol burburka qoyskaaga waxay ka rabto malahan laakiin asbaaba keenaysa asbaabta xalli asbaabta ee hooyada jiritaanka qoyskaaga uga qayb qaadan laadahay asbaabtaas xalli maalintaas waxaan helaynaa qoysas barakaysan oo ducaysan guryasamo waxay ku keentay guurdoon oo aad si sahlan uga xulan karto qofkii kugu habboona mustaqbalka waxaadna guurdoon kala soo degi kartaa Play Store-ka